Ciidamada Kumandoska xoogga dalka Soomaaliyeed ee Gorgor oo tababar heerkiisu sareeya ku qaata gudaha dalka gaar ahaan dugsiga Turkisom ee magaalada Muqdisho kaasi oo ay gacanta ku hayso dowladda Turkiga ayaa waxaa ciidamadan tababarka siiya macallimiin khibrad leh oo dalka Turkiga u dhashay. Dugsiga Turkisom ayaa ka mid ah dugsiyada ugu casrisan caalamka. Markii askarta la qorayo ayaa waxaa lagu qaataa aqoontooda iyo kartidooda iyada oo markaasi laga qaado imtixaano dhinac waliba leh oo isugu jira dhanka aqoonta isboortiga iyo tijaabo caafimaad oo ay maraan. Intaasi kadib waxaa u bilowda dibowga iyaga oo ay markaasi qaadanayaan tababaro dhammaystiran oo ah noocyada dagaalka iyo aqoonta ciidamada heerarkeeda kala duwan. Markii ay muddo sanado ah halkaasi ku jiraan oo ay tababaro ku qaataan dugsiga Turkisom una dhammaado tababarka waxaa loo qaadaa dalka Turkiga si ay tababaro kale oo dheeraad ah kuna saabsan aqoonta iyo Kumandoska noocyadiisa kala duwan uga soo qaataan. Tababarkaasi oo ah noocii ugu dambeeyay ee dunida laga isticmaalo. Markii uu markaasi u dhammaado tababarkaasi iyaga oo loo soo dhammaystiray dareeskooda iyo qalabkooda iyo gaadiidkooda waxaa lagu soo celiyaa dalka si ay uga qayb qaataan dagaalka lagula jiro kooxaha argagixisada ah iyada oo markaasi cutubkii ugu horreeyay ee ka mid ah Kumandoska xoogga dalka Soomaaliyeed ee Gorgor ay ka qayb qaateen howlgallo dhowr ah oo dalka looga saarayay maleeshiyaadka Al-Shabaab kuwaasi oo deegaano dhowr ah lagu xoreeyay. Waxay sidoo kale ka qayb qaataan nabadeynta deegaano badan oo gobollada dalka ka tirsan oo ay qayb weyn ka qaateen. Dhowaan ayaa waxaa dalka Turkiga uu tababar ugu soo idlaaday ururkii afraad ee Kumandoska xoogga dalka ee Gorgor kuwaasi oo haatan qaarkood dalka ku soo laabtay una diyaarsan difaaca qarankooda Soomaaliyeed. Mid ka mid ah hay'adaha qiimeeya ciidamada dunida ayaa warbixin ay soo saareen waxa ay ku sheegeen in ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed haatan uu dhismayo ciidan ahaan iyo qalab ahaan markaasi uu meel sare marayo. Sidoo kale waxa ay ku sheegeen warbixintooda in xog ururin ay sameeyeen ay ku ogaadeen Kumandoska xoogga dalka ee Gorgor ee uu tababaro Turkiga in ciidan ahaan ay yihiin kuwo awood badan islamarkaana la mid ah ciidamada wadamada horumaray ee caalamka. Waxay intaasi ku dareen in ciidankan ay awood buuxda u leeyihiin inay haatan markaasi hantaan guud ahaan dalka oo dhan. Warbixinta oo dhowr qodob ka koobneed ayaa lagu sheegay in ciidamada markaasi looga maarmi karo AMISOM islamarkaana ay ka awood badan yihiin ciidamo badan oo wadamada bariga Afrika qaarkood ah sida wadanka Kenya oo ay tusaale ahaan u soo qaateen. Maadaama ayaa lagu yiri warbixinta uu tababar fiican siiyo Turkiga oo ka mid ah wadamada ugu ciidanka badan gaashaanbuurta NATO, hub casri ahna ay haystaan iyo gaadiid fiican oo markaasi aad u heer sareeya laguna tijaabiyay howlgallo dhowr ah oo ay ka sameeyeen gudaha Soomaaliya. Sidoo kale waxaa markaasi lagu soo hadal qaaday warbixintan ciidamada Kumandoska xoogga dalka ee Danab oo la sheegay in iyaguna ay yihiin kuwo markaasi fuliya howlgallo gaar ah oo ay ku tagaan deegaano ay ku sugan yihiin maleeshiyaadka Al-Shabaab kuwaasi oo ay markaasi ku qaarijiyeen horjoogayaal iyo maleeshiyaad islamarkaana ay ku burburiyeen goobo ay ku sugnaayeen. Taasi oo ay sheegeen in ay muujinayso tababarka ay qabaan oo ah mid aad u sareeya. Waxaa tababarkaasi la sheegay in markaasi ay gacan ka geystaan Mareykanka. Danab ayaa waxay tababar ku qaataan gudaha dalka gaar ahaan dugsiga Generaal Dhagabadan iyo xerada Balidoogle oo saldhig u ah ciidamadaasi. Warbixinta ayaa ugu dambeyn waxaa lagu sheegay in ciidamada Soomaaliya oo ah kuwo geesiyaal ah haddii ay taageero buuxda helaan inay markaasi noqon karaan ciidamada ugu awoodda badan wadamada qaaradda Afrika. Warbixintan ayaa waxaa soo saaray hay'adda markaasi magaceeda loo soo gaabiyo IMS oo markaasi fadhigeeda uu yahay dalka Mareykanka. wadaniga Soomaaliyeed waa dadkii waafiyo xaqu wadankiyo dadkuba waxa kugu leeyahay xaqu wadankiyo dadkuba waxa kugu leeyahay wariya taariikh sanreebo abo waajibkaaga gudo wariya taariikh sanreebo abo waajibkaaga gudo wadaniga Soomaaliyeed waa dadkii waafiyo
waajibkaaga gudo wariya taariikh san reebo abo waajibkaaga gudo cadowga wiiqaaya nabadda cadowga necbada jirkeena walaalnimadeena diigan wanaagga nagama dhaxeeye wadanka hooyo aan difaacno wanaagga nagama dhaxeeye wadanka hooyo aan difaacno cadowga wiiqaaya nabadda cadowga necbada jirkeena walaalnimadeena diigan wanaagga nagama dhaxeeye wadanka hooyo aan difaacno wanaagga nagama dhaxeeye wadanka hooyo aan difaacno nacabka nacabka maatada wax galabsan wax galabsan nacabka nacabka maatada wax galabsan wax galabsan weylkooda waraya hilibkooda waraya baroorta ku wiirsanaya waxay hilibkooda waraya baroorta ku wiirsanaya nacabka nacabka maatada wax galabsan wax galabsan nacabka nacabka maatada wax galabsan wax galabsan weylkooda waraya waxay hilibkooda waraya baroorta ku wiirsanaya waxay hilibkooda waraya baroorta ku wiirsanaya aqarin weliga aqarin walaalka koruu ku yahay wadiyanaga ku qarso qarin weligaa qarin aqarin waraaba rashaada cunaya qarin weligaa qarin aqarin warmaa kugu soo dhacaya wakeli ciidamada amniga warbixi sugan oo qarso wacdiya degmadaada aqarin weliga aqarin wacdiya degmadaada aqarin weliga aqarin walaalka koruu ku yahay wadiyanaga ku qarso qarin weligaa qarin aqarin waraaba dhashaada cunaya qarin weligaa qarin aqarin warmaa kugu soo dhacaya wakeli ciidamada amniga warbixi sugan oo qarso wacdiya degmadaada aqarin weliga aqarin wacdiya degmadaada
أقارن ولقى أقارن ورالك كلوك ياي ودي نقلكو خرصون أقارن ولقى أقارن ورابد شاد عنيا أقارن ولقى oo ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliya waxa soo gudbaya niman adag oo ku kalsoon nafsadooda waxa soo gudbaya kuwa iyaga oo wata calanka buluuga ah oo babanaya geçiyor Somali'nin şanlı evlatları geçiyor kükreyerek aslan gibi Somalili genç teğmen ve subaylar waxa soo gudbaya أولادي صومالية دو شرفله وحقنا وحاسو كنبيا خلينا سراكيل سراكيل حقنا أو صومالية دو أقو حياة بركانا